dadweynaha ku dhaqan magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar ayaa saaka soo dhaweeyay heshiiskii taariikhiga ah ee qalinka ku duugeen saddexda xisbi qaran ee dalkani Soomaaliland wadani kulmiye iyo ucud kaas oo ku aadan khilaafkii qabashada shirkadda qaran dadweynaha oo isugu jiray cuqaal waxgarad haween dhalinyaro iyo xubno kamid ah golaha deegaanka ee degmada Caynaba ayaa si isku wada mid ah ugu amaanay saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland kulmiye ucud iyo wadani sida geesinimada leh ee u soo afjareen khilaafkii shirweynaha dooda qaran oo iminka qabashadiisa gacanta loo geliyay akaademiyada nabadda iyo horumarka Soomaaliland waxaan kaloo halkan ka taageeraynaa kulanka ay isugu yimaadeen xisbiyada qaranka ee ay kaga wada arrinsadeen shirkii ama qorshe uu ka yeesho qaranku waxaan leenahay aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin arrimaha bulshada gobolka Saraar ama waxaan soo dhaweynaynaa runtii waxqabadka iyo hooy heshiiska saddexda qaxood badan gaareen aad iyo aad baan soo dhaweynaa waan kalsoonahay waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa waliba waan si gaar uga codsanaynaa nimanka siyaasiyiinta ee ka soo horjeeda waxqabadka iyo horumarka Soomaaliland waxaan leenahay ka taasula isku qabtana waxa ka fiican in la heshiiyo oo dhinaca nabadda iyo horumarinta looga wareego ay nala tahay haddaan nahay golaha deegaanka Caynaba had iyo jeer anagu waxaan u taageeraa horumarka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu sameeyay ee dalka oo dhan ka muuqda runtii ayaanu taageeraa waxaanu jecelahay shirka Soomaaliland oo shaqeynaya ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo inuu raaco tubta madaxweynuhu jeexay horumarka dooda qaran xisbiyada ku dhawaaqeen ee ay xisbiyada ka heshiiyeen hadeerna u dhiibeen akaademiyada nabadda horta ku saxsan xisbiyada go'aanka ay ku heshiiyeen in wax la isweydiiyo ra'yi la isweydiiyana waa shay muhiim ah waxaan kaloo in yar u sheegaya oo dadka reer Soomaaliland u sheegaya fariin media horumarin in laga daayo qashqashaada horumarka ka socda dalka oo xisbiyadu ay ka feejignaadaan faraya aan u sheegaya cidna ha u joojin horumarka dalka horta ka soo saddexda xisbi labada xisbi mucaaradka ah iyo xisbiga qaranka Soomaaliland heshiiska ay ku heshiiyeen in ay saddexdooda xisbi dooda qaran ay dhameystaan oo ayagu ay dooda qaran ku heshiiyaan ayaan taageeraynaa haddaan nahay gobolka Saraar si kastaba ha ahaatee heshiiskan ay gaadheen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland kulmiye ucud iyo wadani ay dhawaan qalinka ku duugeen ayaa si weyn u gilgilay bulshada ku dhaqan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland kuwaas muddooyinkii u dambeeyay si adag uga doodayay Maxamed Farax Bile telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Caynaba.